xaaladda deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa marba mar ka dambaysa ka sii daraysa waxaana deegaamadaasi saacadihii ugu dambeeyay gaaray ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa Puntland kuwaas oo ka soo ruuqansaday deegaamo ka tirsan gobolada Sool, Karkaar iyo Nugaal. Waxaa ciidamada halkaasi ku soo dhaweeyay wasiiro iyo saraakiil ka tirsan Puntland kuwaasi oo ku booriyay inay ka qayb qaataan howlgalka lagu difaacayo gobolka Sool isla markaana looga saarayo Somaliland. Wararka ayaa waxaa intaas ay ku darayaan in saacadihii ugu dambeeyay ciidanka Somaliland ay bilaabeen inay galaan dhufaysyo hor leh maadaama cabsi xoogan ay ku qabaan weeraro kaga yimaada dhanka Puntland. Madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisu uusan cidna duulaan ku hayn isla markaana diyaar u yahay in wadahadal lagu dhameeyo xiisada ka taagan gobolka Sool, inkastoo wali uu ku sii adkeysanayo in deegaanka Tukaraq uu ka mid yahay deegaamada Somaliland. Madaxda ugu sareysa Puntland ayaa si cad u cadeeyay inaysan wax wadahadal iyo gorgortan ka geli doonin dhulka Puntland isla markaana aysan Somaliland wax wadahadal la geli doonin inta ciidankeedu ay ku sugan yihiin taaka ka mid ah gobolka Sool.